oo ka yimid dalalka bartamaha Amerika ay ku soo socdaan xuduudda waqooyi ee Mexico ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu rajadooda ah in ay soo galaan Mareykanka ugu yeeray xaalad qaran oo degdeg ah. In ka badan 2,000 oo ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka ayaa Mareykanka uu geeyay xuduudda. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Trump ayaa Khamiistii ka digay in ciidamada militariga uu geyn doono xuduudda si uu uga hortago in dadkaasi ay soo galaan Mareykanka. Militariga ayaan u keenayaa xaaladan qaran ee degdega ah waana la joojin doonaa ayuu madaxweyne Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Trump ayaa sidoo kale sarkaal ka tirsan midowda shaqaalaha ilaalada xuduudda ku raacay in dimuqraadigu ay sabab u yihiin dadkan muhaajiriinta ah ee raadinaya in ay soo galaan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyay dalalka Honduras, El Salvador iyo Guatemala inaysan celin dadkooda u soo socdaalaya Mareykanka, waxaana uu sheegay in uu ka jari doono ama ka dhimi doono gargaarka Mareykanka uu siiyo dalalkaasi.